kulanti wanaagsan daawadayaal halkan oo warbaahinta Soomaaliyeed production kuna soo dhawaada barnaamijyadeena qodobada aad ku daawo doontaan hadduu rabidna waxa ka mid noqonaya midowga Afrika oo ku dhawaaqay awoodda ciidamada Soomaaliyeed inay gaartay meeshii ugu sareysay waqtiga ciidamada ADMIS laga saarayo Soomaaliya oo la ogaaday hadda waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin ka soo baxday midowga Afrika oo ammaan lagu jeediyay ciidamada Soomaaliyeed ee kumaandooska Gorgor Danab iyo ciidamada Haramcad ee ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya maxay tahay halkaan inuu midowga Afrika ku amaanay awoodda ciidamada Soomaaliya barnaamijyadeedkan ayaan idinku soo gudbin doonaa waqtigii joogitaanka ciidamada shisheeye ee ADMIS ee Soomaaliya oo muuqday inuu soo gabagaboobay warbixinta midowga Afrika oo soo saaray ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijyadeedkeena qodobada kale aan idinna waxa ka mid noqon doona qaramada midoobay oo dacwad looga gudbiyay agaasimaha hadda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaafi iyo eedamo culus oo loo jeediyay hay'adda sirdoonka Soomaaliya waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin ka soo baxday qaramada midoobay oo lagu eedeeyay hay'adda sirdoonka Soomaaliya inay geysatay xadgudubyo kala duwan oo isugu jira kufsi iyo waliba dilal qorsheysan eedan oo ay qaramada midoobay u jeedisay agaasimaha hay'adda sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaafi iyo gawaanba hay'adda sirdoonka Soomaaliya waxay salka ku hayso ayaan idin soo baahin doonaa waxba kale idinna waxa ka mid noqonayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku wajahan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose iyo taliyaha militariga Soomaaliya Generaal Oduwa Yuusuf Raage oo kamid ah wafdi horudhac u ah madaxweynaha oo gaaray magaalada Kismaayo barnaamijyadeedkan ayaan ku faahfaahin doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku gorfeyn doonaa hadduu alla idmo waana taariikhdu ay ku beegan tahay 27 bisha 11 2022 barnaamijyadeedkeena ayaan gudageli doonaa haddii aan ku bilaabo midowga Afrika ayaa markii ugu horeysay qiray awoodda ciidamada gaarka ah ee Soomaaliyeed gaar ahaan kumaandooska Danab iyo kuwa Gorgor ee xoogga dalka Soomaaliya iyadoo warbixin ka soo baxday midowga Afrika hogaamiyaha midowga Afrika Muuse Faki Maxamed oo kaga hadlay awoodda ciidamada Soomaaliyeed waqtiga howlgalka AMISOM la soo gabagabeynayo iyo goorta ciidamada ADMIS ee ku sugan Soomaaliya dalka laga saarayo hogaamiyaha midowga Afrika Muuse Faki Maxamed oo ka hadlayay qorshaha howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa waxa uu soo qoto dheer kaga hadlay dagaalada xooggan ee haatan dalka ka socdo iyo ciidamada iyo shacabka isbiirsaday ee ka adkaaday dagaalyahanada qawaariijta ee Al-Shabaab isla markaasina ku guuleystay inay gacanta ku dhigaan meelo badan oo ay muddo sanadaha maamulayeen kooxaha argagixisada Muuse Faki Maxamed ayaa qiray in ciidamada Soomaaliyeed ay awood u yeesheen isla markaasina ay ka saareen Al-Shabaab meelo sanado ay howlgalka midowga Afrika ku guuldareysteen in ay ka xoreeyaan dagaalamayaasha Al-Shabaab ma aha wax la xaqiiri kara awoodda ciidamada Soomaaliya waxay ku guuleysteen in meelo badan ay ka saaraan Al-Shabaab iyagoo gacan ka helaya shacabkooda waxaan bogaadinayaa howlgalka guulaha leh oo ay gaareen ciidamada Soomaaliyeed ee kumaandooska Danab iyo Gorgor oo kaashanaya kuwa booliiska Haramcad shacabka Soomaaliyeed isbiirsaday meel lagu soo wadeejistay argagixisada haatan waxa la joogaa waqtigii Soomaaliya ay gacnaheeda isaga dulqaadi lahayd cadawga ku dulhabsaday muddo sanadaha waxaan xaqiijinayaa in awoodda ciidamada Soomaaliyeed ay yihiin kuwa aan la xaqiiri karin ayuu yiraahday Muuse Faki Maxamed gudoomiyaha midowga Afrika oo ka hadlayay howlgalada dalka ka socdo sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya ayuu ku bogaadiyay kaalinta muuqato oo ay ka qaadanayso dagaalada lagula jiro Al-Shabaab waxaana uu soo jeediyay in la sii kordhiyo howlgalada joogtada ah ee ka soconaya gobolada Soomaaliya waxa uu qiray in aanay wax luga ku lahayn midowga Afrika howlgalka Soomaaliya ka socday isagoo sheegay in ciidamada ADMIS ee ku sugan Soomaaliya haatan aanay qayb ka ahayn howlgalka lagula jiro Al-Shabaab waxaana uu qiray guuldarada soo gaartay ciidamada shisheeye muddo sanadaha ku sugan gudaha Soomaaliya ee ku guuleysan waayay in Soomaaliya ay xasilooni iyo nabad ku soo dabaalaan isla markaasina ay ku xoreeyaan kooxaha ugu yeeray argagixisada Muuse Faki Maxamed oo madashan uu ka hadlayay goobjoog ay ka hayeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya taliyaha cusub ee ciidanka ADMIS ee Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa waxa uu qiray in dhawaan la gaari doono waqtigii dhammaan ciidamada ADMIS laga saari doono Soomaaliya
in midowga Afrika uu qiro awoodda ciidamada Soomaaliya ayaa ka dhigan in Soomaaliya guul weyn ay gaartay guushaas oo lagu bogaadinayo dowladihii kala duwanaa ee dalka soo maray tan iyo burburkii kadib oo ay ugu dambeysay dowladii uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. geesta kaleetana daawadayaal haddii aanu fiirino qaramada midoobay ayaa soo saartay warbixin ku aadan eedeymo culculus oo loo jeediyey agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA Mahad Maxamed Salaad iyadoo warbixinta ay soo saartay qaramada midoobana eedan culus dusha uga turtay agaasimaha hay'adda sirdoonka Soomaaliya. warbixintan ayaa toddobaadkan ay soo saartay qaramada midoobay waxaana eedeymahaasi culculus ugu jeedisay hay'adda NISA uu hogaamiyay Mahad Maxamed Salaad. dowladda Soomaaliya weli kama aanay hadlin eedan uga timaaday hay'adda qaramada midoobay waxaana laga dhowrayaa in jawaab ay ka bixiso. warbixinta qaramada midoobay soo saartay ayaa looga dalbaday dowladda federaalka ee Soomaaliya inay jawaab qeexan ay ka bixiso eedeymaha loo soo jeediyay ee ku aadan dambiyada bini'aadanimada ee ku aadan xadgudubyada bini'aadanimo ee ay geysatay hay'adda sirdoonka Soomaaliya. falalkan dilalka kufsiga iyo shirqoolka lagu eedeynayo hay'adda sirdoonka Soomaaliya uu hogaamiyay Mahad Maxamed Salaad ayaa imaanaya iyada oo horaantan agaasimihii hore ee hay'adda sirdoonka Soomaaliya uu ku eedeeyay Mahad Maxamed Salaad inuu qorsheeyinta uu ka baxsanaa xindaabka hay'adda NISA geysashada dilal oo ay ka mid tahay dilkii Ikraan Taliil. dhinaca kale daawadayaal haddii aanu fiirino taliyaha militariga Soomaaliya Jenaraal Odawa Yuusuf Raage ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka Jubbaland. wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegayo in taliyaha militariga Soomaaliya Jenaraal Odawa Yuusuf Raage maamuus dhaaf loogu sameeyay magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka Jubbaland halkaas uu ku soo dhaweeyay xubnuhu ka mid yahay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe. Jenaraal Odawa Yuusuf Raage ayaa ka mid ah wafdi horudhac u ah madaxweynaha jamhuuriyadda oo horaan gaari doona magaalada Kismaayo. magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka Jubbaland ayaa u noqon doonta duulaan ka dhanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab oo maalmaha soo aadan laga qaadi doono Jubbaland. maamulka Jubbaland ayaa qorsheenayo in dagaalku uu ku biiro iyadoo halkaasina uu tagi doono madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. waa markii ugu horeysay oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu tagayo magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka Jubbaland tan iyo markii dib loo doortay isla markaasina uu ku wareegay talada Soomaaliya 15 May ee sanadkan. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u muuqday inuu ihtimaalka uu siinayo dagaalka lagula jira Al-Shabaab. guudaan aqyaarta sharafta leh intaas ayaa ku soo ameeraya barnaamijyada kala socoteen warbaahinta Soomaali weyn tan iyo kulanti dambe nabad iyo warsan.